يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفدقي كواد قيبتي لباد silsiladii loogu magac daray ama ciwaan looga dhigay idaa curifa asabab batal alcajab. silsiladan labada qaybood ka kooban ama labada masaar ka kooban waxay daba socotaa munaadaradii aan ka dalbaday Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi in uu u soo fadhiisto oo gogol cilmigu ku soo dhowaado, laakiin sidaan horeba tilmaamay diiday ama daadafeeyey siyaabo kala duwan inuu gogol cilmi yimaadana ka warwareegay ama ka meeraalaystay. silsiladan maadaama albaabkaasi uu xidhmay iyadoo sidaan horeba u tilmaamay fadhiyo hore طرق kala duwan oo fara badan aan la soo maray Sheekh Barbaraawi iyo taa'ifadiisa sidii masaa'ishan ama masaladan ka warrami doono cilmiyan loo cilaajin lahaa, laakiin duruqdii oo dhan ay awdmeen ama ay diideen oo si cad u diiday Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi. kadib intaasi markay dhacday waxa laga maarmaan noqotay in silsiladan la magac baxday idaa curifa asabab batal alcajab inaan majaalista caqido. majaalistaas oo yeelanaysa laba wado ama laba masaar, laba qismi noqonaysa. qismi ka waran aan ka warramayo sababta ay munaadarada u diidan yihiin iyo taariikhdii aan la soo maray si masaladan iyo masaa'isha la midka ah xal cilmiya looga gaadho, iyo taariikhda iyagu leeyihiin iyo waxa ay yihiin. masaar waa masaarka labaad waa masaarka isaguna ka hadlaya mas'alada la isku hayo ama ciwaanka farciga uu noqonayo aniga iyo Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi maxaanu isku haynaa, ama masaladan hawshu ay ka kacday ee social mediaha aadka loogu falanqeeyey masaladu maxay tahay. masaladaas ayaan insha Allah taala ka warrami doonaa. masaladani waa masalada kicisay fadhiyadan, waa masalada keentay hadallada hawada la isu marinayay. waxa isweydiin leh oo majaalistan sababta loo caqidaynaba ah maxay uga cararayaan ama u diidayaan masaladan si cilmiya in waxa weeye loo niqaasho. sababtu waa basiit insha Allah taala gunaanadkana waan ku sheegi doonaa haddii alla yiraahdo. asaaska jamaacadoodan ama ururkoodan ayaa wuxuu ku salaysan yahay ama wada joogooda wuxuu ku xidhan yahay masaladan, oo masaladan si cilmiya haddii loo faydo waxay isleeyihiin ama malaynayaan in ururkoodaasi aanu u jiri doonin. ثاني شيء مسألة واضحة أو لبس بأنه كتشرين. ثالث شيء مناظرة وحي وضعتها غالبا سؤالية جواب، وقفك اسكما حد لكرو سو دون اسكما حد لكرو سؤالها يا لو يدينيا سؤالها سيا لغا يابا انو سو اودمو اوdanka uu soo oodmaana inay xaqaa'iq badan atbaacda iyo dadka la hayo inay u ifiso waxyaabo badan oo marka hore laga qarinayo.
asbaabtaasaa ugu muuqasho badan ka cararkan faraha badan ay ka cararayaan masaladan in la niqaasho insha allahu tacaala masaladan aniga sheekh cabdullaahi barbaraawi aan isku hayno usluubka aan uga hadli doono ama xalaqaadkii hore aan uga hadlay wuxuu noqonayaa usluub dhinacna cilmi ah fii nafsi alwaqti ay la socoto usluub shiddo ah waa laga yaabaa dadka fudalada qaarkood in ay mulaaxadeeyaan oo usluubka xoogaa shiddadu ay ku jirto mararka qaarkood in dadka qaarkood ay yaro dhibsadaan laakiin qaabkaan ula hadlayo qoladan aniga aqaana bukhaari raximahullah saxiixiisa wuxuu mucallaq kaga soo wariyey cali bin abi aalib ibnu cabbaas laftiisa ka sugnaatay inay yidhaahdeen xadiثu الnaasa bima yacrifuun dadku waxay garanayaan u sheega hadday hadal noqoto iyo hadday usluub tahay labadaba way shamlinaysaa idan usluubka shiddada ayay yaqaanaan usluubka shiddada ayay wax ku fahmaan liinka waxaa laga yaabaa inay wax kalaba u yaqaanaanoo dacfi iyo daca iyo wax la mida inay u yaqaanaan marka usluubka ay fahmi karayaan ee xalka soo dhowaynaya waa usluubka nooca shiddada ay la socoto liinka iyo shiddaduna sideedaba waa laba usluub oo nusxiga cid loo nasteexaynaya loo isticmaalo asalna waxaa ah liinka faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha ha yeeshee usluubka shiddada laftiisa haddii ay xaaja keento ama la dareemo inay baahi jirto shiddo in la isticmaalo waa usluub haabit ah oo rasuulka sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam xadiiska muslim saxiixiisa ku soo saaray xadiidu jaabir ibni cabdillaah wuxuu leeyahay jaabir rasuulku sala allahu calayh wasalam kaana idaa khataba axmarat caynaah wacalaa sawtuhu washtadda qadabuhu xataa kaannahu mundiru jeyshin yaquulu sabbaxakum wamasaakum wuxuu leeyahay jaabir rasuulku sala allah alay wasalam haddii uu khudbadeeyo wuxuu ahaa miday indhuhu casaadaan oo codkiisuna uu noqdo cod qaylo oo kale kor loo qaadayo cadhadiisuna way muuqan jirtay oo cadha ka muuqan jirtay isagu waxaabad moodaysay buu leeyahay inuu ciidan ka digayo ciidan duulaan ah oo soo socda inuu ka digayo marka usluubka nabiga calayhi salaatu wasalaam jaabir ku sifaynayo waa usluub shidda xagga malaamixda iyo qabasaatulwajhi iyo irtifaacu sawt laga qaadan karayo in waqtiyada qaarkood loo baahan karayo xagga lafdiga la isticmaalaya laftiisa nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabiga abu sanaabil markii uu masale ku khaldamay kadaba abu sanaabil baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inkastoo ahlulxijaaz ay culimmada qaarkood yidhahdaan kadibka khata ay ku itlaaqaan waxaa kaloo la mid ah nebigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam ninkii uu ku yidhi bi'sa khatiibu lqawmi ant ninkii magaca alle iyo magaca rasuulka sala allahu alay wasalam damiirka u wada celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qolo mid u khudbadeeyay adigaa ugu xun waxaa la mida bi'sa akhulcashiira nebigu sala allahu alay wasalam ninkii u yimid markii uu soo qaabilayna nebigu hadalka uu yidhi qolo ama qolo tol ah kii ugu xumaa weeyaan ama bi'sa akhulcashiira ama ibnulcashiira hadal adag weeye nebigu sala allahu alay wasalam lafdi adag ayuu ninkaa u isticmaalay marka arrinkaa waxaan u tadaruqaynaa ama u tilmaamaynaa dadka qaarkood oo qoladan aan aqoonin ayaa waxaa laga yaabaa in uu is yidhaahdo hadalka in loo dabciyaa mala fiicnaan lahayd marka taasiilka masaladaas waxa weeye shiddada iyo liinku labaduba waa laba usluub oo haabita oo sharcan sugan oo la isticmaali karayo in dacwada lagu guto markii loo baahdo asalkuna waxa weeye waa liinka bale waxaa laga yaabaa culimmadu tilmaameen in liinku mararka qaarkood uu fasaadba keenaba inuu fasahaad keenaba ayaa suuragal ah marka isticmaalu lshidda fi dacwa ila allahi caza wajal wa fi linkaari mabniyun cala almaslaxa wujuudan wacadaman haddii maslaxadu ku jirto waa la isticmaali karaa ama lafdiga ha noqoto ama ha noqoto qofka wejigiisa iyo hadalkiisa iyo cadhada ka muuqata ha noqoto waa arrin la isticmaali karayo waxaan doonaya inaan tilmaamo arrintaanoo sii taakiidinaya shaykh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo macruuf ku ah
inuu rifqi u samayn jiray maca ahlilbidac iyo dadka munxarifiinta ah usluubkiisa asalka qaalibka uu ahaa inuu waxa weeye alfaadiisuna ay ahayd alfaad degan oo aan lahayn waxa weeyaan jarxi aan lahayn isticmaali jiray inkastoo guud ahaan lagu sifeeyo sheekh islaam ibn taymiya markuu masaa'isha tanaawulayo in xidda ay ku iman jirtay waqtiyada qaarkood ayaa wuxuu tilmaamayaa maalan waqtiyada qaarkood alfaad laga yaabo isticmaalkeedu inay naadir tahay waqtiyada qaarkood in qof sheekh ahli cilmi uu cid ku itlaaqo inuu mararka qaarkood uu isticmaali jiray maalan ninkii la oran jiray ibn mutahhir al-hilli kitaabka minhaj al-karama fi ma'rifati al-imama alifay nin shiici oo raafidi ah ayaa markii uu sheekh al-islam uu radinayay kitaabkan uu alifay minhaj as-sunnah ee uu ku radinayo minhaj al-karama ayaa wuxuu oranayaa muqaddimadiisa marka uu bilaabayo ayuu wuxuu oranayaa wa huwa khaliqun bi an yusamma minhaj an-nadama kitaabka uu minhaj al-karama uu bixiyay wuxuu mudan yahay in lagu magacaabo minhajkii ندامة يتيران يضع كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه حلية هاي سيدا كطهارة الشيكتي وابن المطهر بل أورجلينينكا كشيكتي طهارة كاسو ولي بأه من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كمدا كوي لهي أن الدونين قلوب تودين طهرة بل إنه أهل الطهارية هيك من أهل الجبت والطاغوت والنفاق نفاق يا طاغوت كي جبت أهل وكان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالطهارة إن ابن النجاسة لا يلاهدو أي كم مديه ابن المطهر إن لا يلاهدو وهذا رنتي آدي أدك كما ورمي ابن المطهر أي لم يديه قلها هذا المثل مامية كتأصيل المسألة كورمي اختزالكuna waa nooc ku tusaya su'ul qasd qofku intuu hadal ku hadlo hadalkii siyaaqiisa in yar intuu ka goosto inuu inta nashriyo oo yiraahdo waxaasana lagu sifeeyay ama waxaasana lagu yiri waa usluub sayyi weeye isla kitaabka waxa uu oranayaa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Ibn Mutahhir isagoo sheegaya ama raafidada sheegaya markuu khuzacbilaadkoodii uu ka yaabay iyo waxay daliil ka dhiganayaan iyo wuxuu u liitaan ayaa marka uu ku daalo dareemaysa usluubku inuu yahay usluub qof ka daalay ama dhibsanaya nimankan waxay xujaj ka dhiganayaan iyo waxay sheeganayaan buu oranayaa wal aamatu ma'dhuruna fi qawlihim ar-rafidhi himaru al-yahudi wuxuu caamadu cudur daar bay ku leeyihiin marka ay yiraahdaan ay ku sifeeyaan ay yiraahdaan raafidadu waa dameerkii yahuudu kori jireen weeyaan hadalka noocaasi waa hadal ay macduuriin ku yihiin sababtoo oo ah nimankani in waxa lagu sifeeyo way istaahilaan waxa kale oo tilmaamaya maruu isna radinayay hadal ay ka yiraahdeen Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ay amaaneen ahlu riddihi yamaama ayaa wuxuu oranayaa والجواب بعد أن يقال الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين أتباع المرتدين الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين وتولوا أهل الردة والنفاق فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم المتعصبين على الصديق رضي الله عنه وحزبه من أصولهم من جنس المرتدين الكفار كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه كل هذا والفاظ حتى حكم بالردة لغا قادنايو مع ان شيخ الاسلام لا يقانو انانو رافضada cawaamtooda inaanu gaalaysiin oo waxa weeyaan nusuus badan uu leeyahay hadana hadalka adag ee xitaa riddada uu ka cabirayo sheekh al-islam ibn taymiyyah waxaan uga jeedaa kullu hada waa usluub la isticmaalo masalada haddaan inta ku dhaafo masalada labaad ee aanu galeeyay iyaduna tamhiid noqon karaya waxa weeye usuusha cilmiga iyo mubaaxasada iyo munaadarada kama mid aha in furuuc lagu waqti la iskaga lumiyo iyo ahkaamta dadka la xukumayo in waqti la iskaga lumiyo qabla ta'siil al-usul iyadoo aan usuushii ahkaamtii aan la cadayn ama aan la isku waafaqin ama aan meel la isla saarin cilmigu wuxuu qaybsamaa usul iyo furuuc marka usuushii adoon dabdin
oo aan meel la saarin oo aan munaadaradii labada taraf aanay isku waafaqin inaad u daadegto furuucdii iyaduna waa khalal cilmiya weeye marka qofku waa inuu si xukunkii uu dadka saarayay iyo xukunkii uu masalada ka qaadanayay si ay u sugnaato xukun saa'iba uu noqdo waa inuu usuusha marka hore ictinaa ku sameeyo dabdiya in badanna waxyaabaha munaadaraadka ama munaaqashaadka ka qaada barakada ama la isla fahmi waayo waa in iqraaq lagu sameeyo furuuciyada usuushii la dabdin sheekh al-islaam ibn taymiyyah rahimahullah masalada isagoo cadeynaya wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamay majmuuc fataawaha iyo manhaj sunnah labadaba uu ku tilmaama waxaan u tilmaamayaa si uu u dabdiyo marka munaadaraadka dadkan uu la galayo inta aan munaadara la gelin inuu usuusha cadeeyo ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحكمه أئمة وقم مقاشدة بدن حق تأصيل انت مسائشة هي أسلوب كحوار كي مناظرة وحليه لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليه الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وحليه وحلقة مرمانا قفك لتشركي سيني تشيران أصول شاسو كليات oo juz'iyaadka iyo furuucda loo soo celiyo marka farc la isku khilaafo usul loo soo celiyo waa inay jirto maxaa dhacay hadduu sidaa sameeyo liyatakallama biilmin wa adl wuxuu ku hadlayaa cilmi iyo cadaalad kadibna wuxuu garanayaa juz'iyaadku siday u dhacday yani haddaynu misaal bixinno qof ayayna waxaynu ku haysanaa maalan inuu ku dhacay inuu muslimiinta gaalaysiinayo dunuubta iyo macaasida aan kufriga gaarsiisnayn inuu dadka ku gaalaysiinayo intaynaan isaga isula degin oo isaga asal ka dhigin shakhsigan imika yimid aynaan asal ka dhigin waxa muhiima marka hore in dadka dunuubta iyo macaasida lagu gaalaysiiyaa xukunkeedu waa maxay taa xukunkeeda marka la sugo ayaa waxa farac noqonaya juz'iyo noqonaya tatbiiqu hada alxukm ala hada shakhs qofkan in lagu dabaqo lagu dajiyo xukunkan ayaa farac noqonaya qofku marka hadduu sidaa yeelo marka hore usuusha uu taago kadibna furuucda u soo daadago cilmi iyo cadaalad ayuu ku hadlayaa وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم بليه الشيخ رحمه الله هدو سيدا يلي وايو وحوكو باقي أهانيا بين يجهل جزئيات كي وكاغا سغنادو iyo jahli iyo dhulmi uu kaga sugnaado kuliyaadkii waxana ka dhashay fasaad aad iyo aad weyn qodobkaanayna baraarujiya waa muhiim waa laga maarmaan sababta oo ah masaladan aynu ka hadlayno hadaan la tafsiilin oo la qaabayn oo juz'iyaad iyo usul loo kala sameeynin oo lagu celceliyo oo hebel baa khaldamay iyo hebel baa mubtadica iyo hebel baa salafi ah ma soo afjarmayso masaladu قضب كلام براروتشينيا waxa weeye مفهوم الحجة وبيان الأدلة الشرعية وبيان تنقيح المناط قضايات بقى مهمة جدا مسائل أنا ما كي صوب بحين أما مناظرات عن طلبضي أما لقاءات مقتضبة كلمة عن كيري أو أنت المامي لمن كان إناني حجة هيسن إناني حجة الشيء ولي بعض كي يقدم بي ضوضا كعيي وحنا يقولون ما يشيقين حجة diidaysa suuradii masaladan sheegay annam ma ogi ayaa qaarkood waxay tilmaameen ama ay la yaabeen hadalkayga noocaas oo ay yiraahdeen sidee baanaan xujo u sheegin 22 sanadood waxaanu akhriyeynay miyaanay xujo ahayn hadaba waxa muhiim ah la isweydiiyo maxaa xujo ah markee baa la oranayaa qofkaasi xujo sheegay dacwadiisa iyo sheegashadiisa daliil u ah goorma la oranayaa goorma sal oranaya haba ku celceliye waxa uu sheegay xujo ma aha anu hadalkayga amaan oran maydaan hadlin waad hadashan in badan baad hadlayseen laakiin waxaan xujo maydaan sheegin farqi baana u dhaxeeya maydaan hadlin oo intaaba waad hadlayseen iyo xujo maydaan sheegin xujadu waxay xujo noqonaysaa marka afar qantara ka gudubto kow dhikru daliil daliilka wayna sheegtaa masaladan aad leeyahay sheeganayso wayna daliilkeedii sheegtaa ثانيا صحة الدليل دليلك هو إنه صحيح يعني دليلك هو إنه صحيح يعني صحة هذا واحد لقى طلبانه وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن القرآن هو صحيح قضب كصدحات بيان وجه الشاهد سايو مقبول والنقضاء قضب كأفراد الإجابة عن الاعتراض
waxa lagugu soo aroorinayo waa inaad ka jawaabi kartaa haddaan intaa la helin ku celceli weligaaba waxaa sheegtay kal cadam buu noqonayaa kaannaka lam taqul shay'an xaqiiqadu waa sida waad hadashay laakiin ma qulta shay'an wax xujo la oran karay bal ragga ku celcelinaya ee leh waxaad nagu tiri xujo maadnaan sheegin annana waanu sheegnay waayahay nas kasta oo la sheegaa haddii uu xujo noqonayo bal maxaad ka odhanaysaan raafidadu markay sheegteen wilaayadu inay ahamu min kulli shay calina uu weli yahay oo cali uu axaq bilkhilaafa min athalaatha أبو بكر يا عمر يا عثمان يسووا كمدنا وحيد ليسدن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون دير رافضة كاسي ودليشتي وحا كسارة إنا تلاهذا رافضة الحجة وهي ستان مسألة أي إنا تلاهذا حجة معها حدي هذا بوكو هذا رافضه سبحان الله 20 سنوات بان لها آية أخرية إنما وليكم الله سيدا بعد يقولون كرتا حجة ما هيستي وعلى هذا النمط وحلمد أهل البدع أرباب البدع ومولد كي نبي أي بدعاء مولد النبوي دود بالدقي وحيود الإسلام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ده واحد هذا بدعة المولد كحجة هيستان إذن حجده maaha macnaheedu inaad nusuus tilmaamto kaliya xujo ma nusuustu daatadeeda xujo u tahay laakiin waxa la nafiyay cadamka laga soo qaadaya waa in ay xujo kuugu tahay mas'aladan muayyanka ah idan taasina wala budda in la ogaado oo anigu marna maan oran maydaan hadlin waxba sheegteen marna ma oran ee waxaan sheegay inaydan xujo sheegin xujaduna xujo waxay noqonaysaa markay namadka marto qodobka labaad وحموهي إن لقرتو تنقيح المناطق أدلة الشرعية مركز الإيجايو هي كذلك حتى حكم كعدل حكومة أقواش أهل العلم أي عد حكوميان وحموهي ما تنقيح المناطق وح أصول الفقه اللوجية قانون إن أقوال الله يشو أصول وحويا تنقيح المناطق هنا والنظر في أوصاف مذكورة مع الحكم لتخليص المناط فيما ليس بمناط إن لأيغو أوصافتا مركا لليه وحا سوسميو وحكم كيسو وحا علدا حكم كان وعلدا أهي أوصافتا مقترن كأهي لصعوت إن لك له فوق يعني تهذيب العلة وتصفيتها الذي حكم كان وعلدا أهيد إن لك له فوق أو سيلوك له الفوفية بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له إن لك لصاروا وحي حكم كان علا ونقون كريا أو صافتا إيا وحي آن علا ونقون كريم تصالح عن نبي عليه الصلاة والسلام من أعرابي أجمد سيدا في البخاري وغيره كسوغان ننكاس وحكسو أرورتي أوصاف بدن أوصاف تاكسو أرورتي وحي هايد ننكاس وحو لابتو اسكا قراعي تمهنا واسكا رفاي wuxuu ku qawlaya halagtu wa ahlaktu waxaasoo waxyaabo xukun baa nabigu sheegi doona laakiin xukunka inta la sheegay waxyaabahana ka horeeya waqactu ahli fi nahar ramadan كل هذه النبي عليه الصلاه والسلام ku dhameeyay wuxuu ku aatiq raqaba xukunki waa ka hadaba waxa ka horeeyay ee la sheegay oo dhani ma xukunkana qaadanayaan oo مثلا ninku hadii isagoo qaylinaya uu yimaado qof kasto qaylinaya ma waxa lagu oranayaa aatiq raqaba qof kasto timaha iska rifayo laabta garaacaya ma aatiq raqaba lagu oranayaa waxyaabaha soo dhan waa laqw xukunku calaaqa la malaha xukunku waxa weeyaan waqactu ahli fi nahar ramadan xaaskaygii waliba culimada qaar ku waxay xitaa xaas inay tahay waa laqw marka awsaafta in la kala reebo qofku intuu wax iska xashriyo wax yasluh an yakun illa lil hukm iyo waxaan ahayn inuu iska daldalo ama aqwaasha ahlul ilmiga intuu arko hadallo badan oo iskaga jiro xashwi ah oo ka dhiga inay xukun tahay oo xukunka illa u tahay كل هذا waxay noqonaysaa waxyaabaha jahliga tanqiixul manaad kuna sidii sabab marna wuxuu noqdaa awsaafta qaar kood in la xadfo
ولهذا وحنا ترسي أوصاف ما حكم لا علاقة له بالحكم لسكتورو مرنا waxay noqotaa waxaan ku jirin in lagu soo daro leeyada intaan sheegtay sax ma aha xukunna kuma dhismaya kuwa kala lagu soo daro taasina iyaduna waa muhiim oo tanqiixul manaadka in la barta waa laga maarmaan waxa kale oo iyaduna baraarujin ah aqwaasha ahlul cilmiga sidee baa loola tacaamulaa mas'aladani waxay qirayaan oo ay yiraahdaan mas'alada aanu ka hadlayno ama cid ay mas'aladan ku saabsan tahay oo ah jamaacaadkan daawiga ah magacyada kala duwan leh waxay soo baxeen bay yiraahdaan qarnigan 14aad xaga tirsiga islaamka yani muddo 100 sanadood meelaha ama wax ku dhow ayay soo baxeen ka hor may jirin idan julliga waxay u daliishanayaan waa fahamka nusuusta ay ahlul cilmigu ka fahmeen ee ay ku dabaqeen tawaa'ifta wax kamida iyo awsaafta iyo ficilkooda iyo waxay caqiideysan inta la eegay la xukmiyay ولذلك waxaa arki doontaa in badan aqwaasha ahlul cilmiga ayaa la soo naqliyaa mucaasiriinta qadiyadan hadaba qowlkii ahlul cilmiga sidee baa loola tacaamulaa ugu horreyntii waxaynu ognahay qowlka ahlul cilmiga horena waynu sheegnay majaalis hore inaanu xujo ahayn isaga xujo loo doonaayo isagu xujo ma aha laakiin istinbaadaadka ahlul cilmiga waa la yusta'nas oo markaad doonayso nusuustii inaad fahamto iyo fiqi aad wax kala soo baxdo ayaad istinaas ay ku noqonayaan iyo dugsasho aqwaasha ahlul cilmigu haday tacaarudaan oo sheekhi masaladii qowlkana waa laga soo wariyay oo uu sheegay qowlkana wuu sheegay sidee baa loola tacaamulaya waa mas'alo keeba isaga qowl wahna waa mas'ala labaad sidee baa loola tacaamulaya ahlul cilmigu waxay sheegeen sida imaam ash-Shanqiiti inay loola tacaamulayo marka ay tacaarudaan sida nusuusta sharciga ah loola tacaamulo marka la ismoodsiyo inay tacaarudeen oo nusuustu hadii la ismoodsiyo inay tacaarudaan sidee baa loola tacaamulaa marka hore waa la jamciyaa wal jamcu waajibun mata ma amkana illa falil akhir naskhun bujina jamciga waajib ah hadii jamcigu tacadurana waxa la eegaa المتأخر يا متقدم إني كلليه هدي لا إيجو متقدم متأخر لأوجاده نسخ بك صورة قلة هدي كلام ترجيح هدي كلام توقف عند بعض أهل العلم الإمام الشنقيطي وحوت المامية أقواش أهل العلم كان أيضا هلك على مرينا يو عالم كلا بقى أو إسبران برينا يلا قصور النقلية أنت آن لأوران نسخي يو هوش الله جيني هور طلبات قول ما يستجمع اسمه يعني oo suuragal ma tahay suura in la isugu keeno mise maaha haddii ay jamcismi waayaan markaas waxa loo soo degayaa keebaa horeeyay keebaa dambeeyay صاحب المراقي وحوليه وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان ومسألة اللبان كيبا حدي أيون نحن مدبا لغا تغيا كيبا إساق قول نقونيا وحوليه قفك لبا قول لغا وريا كدنبه ayaa qowl u ah marka ay istabagalaan bimacna ay kala dambeeyaan qowlka dambe ayaa qowl noqonaya wuxuu leeyahay naadimku sharxiisa إذا نقل عن مجتهد قولان في مسألة متعاقبان وعلم المتأخر منهما فالمتأخر منهما هو قوله والمتقدم مرجوح عنده غالبا marka mas'aladan ku saabsan in la ogaado waxay u baahan tahay juhdi fara badan saynu tilmaami doono cilmiga qaarkood oo masaa'ishan aanu fadhiya ka yeelanay ayaa waxay isku dayeen inay yiraahdaan qowlkani waa sax masalada nasbu ku yahay imaamkaasi yiri laakiin waa qowl hore marka inaad sugto inuu kaasi horeeyay kana uu horeeyo min su'ubati bimakan laakiin hadayba dhacdaba waxaan oranaynaa qowlkii dambeeyay ba isaga qowl waa kii horana inuu ka soo noqday ayaa qowl ah masaladaasna iyada in la ogaado waa laga maarmaan fadhiga hore ama xalqada koowaad iyo majliska koowaad ee qaybtan aynu ciwaanka uga dhignay maxaa noo dhaxeeya aniga iyo Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi ama masaladan isku haynaa maxay tahay
majliskiisii koowaad halkaasuu inoogu egyahay wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.